السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. markay dhigaha ku soo dhacaan magaca kooxda Saamiriya waxaad u malaynaysaa inaynu ka sheekayno koox jirtay xilliyadii hore oo baabaaday waqtigan aynu joogno si lamida si loo waayo koox diimeed jiray oo hal mar qarsoomay laakiin waad khaldan tahay oo kooxdani wali waxay joogaan dhulkan waxayna diintooda si nabad ah ugu cibaadaystaan waddan ka mid ah wadamada Carabta waxayna ku dadaalaan inay si joogto ah u ogaan waajibaadka diimeed ee saaran waxayna isu yaqaaneen haystaan diinta afraad ee ugu ballaaran caalamka marka laga yimaado islaamka kiristaanka iyo yahuudiyadda inkastoo caalamku ilaawo yaraanta yar yihiin awadeed haddana waa koox mudan in la sheego oo la soo bandhigo sidaas darteed ayaynu muuqaalkan ugu gaarka yeelnay saynu maanta uga hadalno koox diimeedka Saamiriyiinta xagay ka yimaadeen siday u nool yihiin iyo si tacadnimada ay ka dhaxaysa iyaga yahuudiyadda ilaa maanta haddaba daawade fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribe saar oo nagu soo biir sidoo kale like garee si aad noo dhiirigeliso dad badanna uu gaadho barnaamijkani waayo Saamiriyiintu waa koox asaga rumaysan diinta Tawraadda laakiin Tawraadda ay haystaan waxay gabi ahaanba ka duwan tahay tan ay haystaan Yahuudu iyagoo sheegtay in Tawraaddoodu tahay tii saxda ahayd Allah subxaanahu wa ta'aala ku soo dejiyay Nabiyullaahi Muuse calayhi salaam halka Yahuuduna ay tahay mid ay bedeleen oo ku ciyaareen kooxdana waxay ka soo farcantay ilmaha Israa'iil laakiin waxa labadan qolood ka dhex dhashay khilaafiyo isfaham waa sababay inay kala baydhaan sidaa darteed ayay kooxdan u haysataa Tawraaddii saxda ahayd halka Yahuuduna ay bedeshay Tawraaddii waxa lagu qiyaasaa tira ahaan dadka haysta caqiidadan caalamka oo dhan in ku dhow 800 oo qof oo kaliya iyadoo la qabo in tiradu aad u yar tahay marka laba badhigo diimaha kale dadka haysta haddana waxay ku fariisan yihiin dhul ballaaran waxayna ku nool yihiin Nablus gaar ahaan deegaanka Luza iyo gobolka Xooloon oo dhowr mitran oo kaliya ka durugsan caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv haddana ragna taariikhdooda dambana caalamka cusub waxa Saamiriyiinta la bartaqaaniga 17aad miilaadiga iyagoo waqtiga ka yar 200 oo qof oo kaliya waxayna deegaan ahaan lahayn xaafadda loo yaqaano Yasmiina oo ku taalay magaalada Nablus ee qadiimiga ah soo kale waagii hore looma aqoon magacan Saamiriya oo waxa magacooda laga soo dhaxal guuriyay magaca Shaamir iyadoo loo nisbeynayo boqorkii waqtiga deegaankooda asalaana waxa weeye Saaqiim oo hadda loo yaqaan Nablus qibladoodana waa buurta Jurzim waana buur muqaddas ah marka loo eego waxa aaminsan yihiin waana jihada ay ula jeestaan salaadooda ducadooda iyo camaladooda khayriga oo dhan sida islaamku ula jeesto Kacbada halka Yahuudu kalena deegaan ahaan u leeyihiin magaalada Orshalim oo hadda Qudus loo yaqaano halka qibladoodu tahay buurta Sahyuun sida hore soo sheegeen waxay koox walba haysataa Tawraad ka duwan midka kale sababta khilaafka u dhaxeeya Saamiriyiinta iyo Yahuuda waxa uu sacad soo muuqday khilaafka u dhaxeeya labadan kooxood kadib markii boqortooyada Yahuuda uu soo weeraray boqorkii Baabiliyiinta oo Yahuudi ka dhigay wax u shaqeeya inuu dilo iyo inuu xidho kadibna ka soo bixi Masar ay maadeen magaalada Kancaan ayaa waxay ilmaha Israa'iil soo khilaafeen cid ay hogaaminta u dhibi lahaayeen waxaana soo kala sharay Ciisi Finxaas Haaruun iyo walaalkii Caali Finxaas Haaruun ilmaha Israa'iilna kuma heshiin cid ay ka dhigan lahaayeen khaliif halka ilmaha Yuusuf ay wateen ninka hore halka kan kalena ay wateen ilmaha Yahuuda iyo ilmaha Benyamin khilaafku inta kuma joogsan oo kooxdu waxay wadatay Tawraad u gaar ah oo ay rumaysan yihiin Saamiriyiintu waxay haystaan asfaarta shanta ahayd ee uu qoray Nabiyullaahi Muuse calayhi salaam soo kale Saamiriyiintu waxay leeyihiin hal madhab oo kaliya halka Yahuuduna dhowr madhab iyo wadiiqo ay leeyihiin arrimaha ayaa keensaday in ilaa waqtigaas ay haystaan oo cadow isku ahaadaan iyagoo midnimada kale uu beeninayo kuna sheegayo gaalnimo inkastoo labada kooxoodba gaala yihiin maadaama aanay rumaysan diinta islaamka haddana haddii la soo kala dhaweysanayo waxayna xiga oo inoo dhow Saamiriyiinta dhanka haddii ay dhaqamada diimeed ay sameeyaan Saamiriyiintu kuwooda ugu muhiimsan kow in labka la gudo marka uu dhasho labo in gabdhaha laga fogeeyo shaqada guriga inta ku jira xaaladda bilaa ah saddex in gabdhaha laga fogeeyo la xiriirka Saamiriyiinta kale ee taabashada alaabtooda muddo 40 cisho haddii ay wiil dhasho halka haddii ay gabadh dhashana laga fogeynayo muddo 80 cisho ah saddex in la weysaysto oo la tukado maalinka sabtida oo ay tahay maalin muqaddas ah diintooda afar gabdhahooda waa buurta Jurzim shan hal gabadh ayaa ninka xaalo ah oo ninku wax hal gabadh ka badan ma guursan karo toddoba inaan hilibka iyo caanaha hal mar la isku cuni karaynin sideed inaan la cunin cunto lagu kariyo guriga dibadiisa sagaal dabaaldega 7 ciidood oo kala ah Ciidul Fasxi waa dabaaldeg ay ku xusaan maalinkii ka soo baxeen Masar kaana xoroobeen adoonnimadii faraaciinta waa sida sheegaane waana ciidda ay ku dabaaldegaan buurta Jurzim dusheeda Ciidul Fadiil shirkadda ciidan waxa weeye inay markii ay soo baxay Masar ay ka soo baxeen waqti hore oo habeen ah
yacni iyagoo cajiinkoodii khamiirin ayay kasoo baxeen Masar sidaa daraaddeed ay waxay cajiinkoodii ku dubteen safarka dhexdiisa. ciidul xasaad waxay yidhahdaan waa maalinka ay towraad soo degtay waxayna salaad ku tukadaan dusha sare ee Jursiim. ciidda sanadka cibriyada maalinkani waxay ku beegan tahay maalinka koowaad ee bisha toddobaad ee sanadka cibriyada. ciidul qufraan waa maalinka tobnaad ee bisha toddobaad ee sanadka cibriyada waxayna soomaan muddo 25 saac ah caruur iyo ciroolaba waxa kaliya taa oo aan soomin caruurta naaska shaqaysa. ciidul madaal waa 7 cisho oo dabaaldeg ah kana bilaabato 15 bisha toddobaad ee sanadka waxayna ku soo xajaan Jursiim. ciidda maalinka sideedaad waa ciidda ugu dambaysa saamiriyiinta waxayna qabsadaan 27 bisha toddobaad ee sanadkooda. intaas ayaan kusoo goynaa maanta muuqaalkeena. والسلام عليكم ورحمة